Asalaamu calaykum asxaabtayda qaaliga ah ee ku xiran kanaalkayga Wadani Show. Ku soo dhawaada Ramadaan wanaagsan. Waxaan idiin wadaa aad idin anfici doona, muhiimna ah runtii. Telefoonadana inta badan culays ayaan uga cabanaa, marka app-kan aad ayuu inoo anfici doonaa. App-ka magaciisa waxaa la dhahaa All in One Toolbox. Waa app-ka hortiina ka muuqda oo baahada ah oo ujeedaan. App-kaas sidee ku heli karaa hadaba? Waxaad ka helaysaa Play Store-ka, waa free app-kaas. Aan raadino halkaa hortiina ka muuqda. Waxaan ku qorayaa markaa Play Store-ka All in One Toolbox. Waa search gareynaysaa. Waa app-kaas ugu horeeya All in One Toolbox. Aan ku sii dhufto saas uu soo baxaya app all in one toolbox storage or cache cleaner booster. App-kaas waaye aniga hadda waa igu jiraa. Haddii uusan kugu jirin adiga waxaad sameynaysaa install baad leedahay. Hadda waa furanaynaa marka aan aragno bal qaabka uu shaqeeyo. saas uu soo baxaya wajhadiisa horeeto. Marka wuxuu na geenayaa home page buu na geenayaa. waa app surface badan buu leeyahay. wuxuu leeyahay khaanado badan, waxyaabo badan baa loo isticmaalaa, laakiin hadda xogaa waan soo gaabinaynaa. inta waan koobaynaa, sharaxaadiisa ma dhamaystiri karo. oo ujeedaan asxaabi app-ku waa kaas ujeedaan hortiina yaala. waxa uu leeyahay saddexdaas nooc: clean, boost, battery saver. waxaan sameynaynaa marka maxaan u isticmaalnaa now? marka ugu horeysa waxaan ku dhufanaysaa si aad telefoonka u clean gareyso oo waxyaabaha wasakhda oo ku jiro aadan u baahnayn inaad uga saartid. clean baa ku dhufanaysaa. clean markaa ku dhufatid wuxuu bilaabayaa macnaha waxyaabaha wasakhda oo telefoonka ku jira inuu raadiyo oo uu soo saarayaa. marka uu soo saaro scan-ka, marka uu dhamayo ayaan sugaynaa. waa uu wadaa. telefoonkayga waxa uu sheegaya inuu aad u wasakhaysan yahay sababtoo ah ma nadiifin. wasakh badan buu soo qabtay. 2.3 giga buu marayaa. ila socda asxaabtahay. fadlan app-kan aad ayuu inoo wada anfacayaa. qof kasta oo telefoonkiisa ka cabanaya inuu culays ka dareemo ha isticmaalo. waa ujeedaan waxyaabo badan buu soo qabtay. aniga hadda waxyaabaan u baahanahay baa ku jira, sida Telegram-ka wuxuu sheegayaa 1.15 giga inuu yahay oo ku jiro oo data ah. sidoo kale wuxuu sheegayaa storage-ka inuu ku jiro 1.15. sidoo kaleeto YouTube waa ujeedaan. aniga hadda ma clean gareynayo, waxyaabo badan baa igu jira waan u baahanayo hadhow. waxaad taabanaysaa marka button-kaas buluugga ay ku qoran tahay clean ayaa taabanaysaa. aan ka baxno boost haddaad tagtid isagana qaybta labaada. boost waxa uu ku leeyahay marka uu dhamayo clean wuxuu ku leeyahay halkaas ma la dhahay boost buu ku leeyahay. boost-ga taabanaysaa. boost wax kale ma sameynayo, wuxuu kaa seexinayaa application-ada aadan isticmaalayn oo ilaa aad soo furato app-ka ma isticmaalaysid. si aad dabkaaga u save gareysto xayeysiin yar baa soo fuushay. xayeysiintaasaan sugaynaa intayna ka dhacayso. iga raalli ahada asxaabay. xayeysiinta waxaa wata app-ka, inagu wax shaqaa kuma lihin. waa iska xireynaa. hadda ujeedaan boost-iga waan sameynay. all apps stopped. application-adii oo dhan waa inaka joojiyay macnaha adiga oo markaa dalbato yuu kuu soo kacayaa, laakiin telefoonka nagama cuslaynayaan. halkaana maxaa waaye waa battery saver. ujeedaa asxaabi waxyaabahan oo dhan iska jooji buu ku leeyahay si aad batarigaaga u dhaqaaleysatid. hadda uma baahna inaad batariga dhaqaaleysato, laakiin halkaas waxaad taabanaysaa boost baad taabanaysaa. markaa rabto inaad iska joojiso apps-kan oo dhan oo dabkaaga dhaqaaleysatid. ila socda asxaabi. app-kan wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan. halkan waxaa ku jira khaanado badan
halkan hadda waxaad uga jeedaa nin halkaas boorsada camala markaa ku dhufato waxaad arkaysaa file manager. file manager kaas waxaa awood u leedahay marka adiga wixii aad rabtid inaad ka saartid, wixii aan rabin inaad iska saartid, sawirada, audioga, videoska, documentska kugu jira, applicationada APK-ga soo download garaysay, videoska ama sawirada ama wax kastoo soo download garaysay, compresska. markaas asxaabi applicationada duplicate-ka ah halkaan aad taabanaysaa, ujeedada halkaan aad taabanaysaa asxaabi wixii duplicate ah ama maxaa la dhahaye copy ka sameeyay ama aan original ahayn oo dhan halkaas ka soo saaraya, saas uu wareegaya. hadda anigu waa iska decline garaya duplicate kasta, wax duplicate iguma jiro. sidoo kale waxa uu leeyahay haddaan ka noqdo app manager buu leeyahay, ujeedaan applicationada dhan baa halka kugu soo taxaya wixii aad rabto. inta application aad doontid ba hal mar tig saaraysaa meeshii aad hal xabo u saari lahayd, kan hal inta doontaa tigta saaraysaa. kabacdina waxaad samaynaysaa waa uninstall baa leedahay, doontana backup baa leedahay. sidoo kale waxaan tusi doonaa, sidoo kale wuxuu leeyahay WhatsApp clean your WhatsApp-ka clean garay haddii WhatsApp culays kaa keenay, sawirada iyo iska clean, sawirada clean garaynaysaa ama video iska clean garaynaysaa, audio haddaad doonto iska clean garaynaysaa, option baa leedahay macnaha. waxaan leedahay haddaad doonto voice message-ka baa iga delete garay leedahay, xor baa tahay macnaha waxaa rabto baa iska clean garaynaysaa si aad telefoonkaaga u fududaysid. photo compression buu leeyahay, system app uninstall buu leeyahay, duplicate photo sawirada kaliya oo maxaa la copy ama aan sawirada saxda ahayn. sidoo kale easy swipe buu leeyahay. waxyaabo badan buu appkan maxaa la ka anfacaya. marka asxaabi ha la isticmaalo telefoonada lagu fududaysto. casharkeena waa intaas, waan ka baxaynaa appka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. rabadaan wanaagsan. haddaan ugu cusub tahay walaale kanaalka subscribe inoo saar si video walbo aan soo dhigno aa u noqoto qofka ugu horeeya uu soo dhaco. waa mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.